iyadoo maalmahan deegaanada Puntland uu socdaal ku mareeyay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Qardho xarunta gobolka Karkaar waxaana wafdiga banaanka magaalada Qardho ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho iyo qayb ka mid ah ismada gobolka Karkaar gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay degmada Qardho aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wafdiga ballaaran oo hoggaanada darteed waxaanu kugu soo dhaweynaynaa ina goboladan dhinaca looga hadlayo ay noqdaan dhinaca horumarinta dhinaca humanitarian-kana laga soo gudbay wasiirka wasaaradda waxbarashada Abshir oo Yuusuf Ciise iyo wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa si wada jir uga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii fiicnayd waliba iyadoo ay arooriyo hore tahay naloo sameeyay isla markaaba qurac sharaf qiimo iyo qaaya badan naloo sameeyay aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhaweyntii diiraneed waan ka mahadnaqaynaa sida uu sheegay wasiir Abshir waxaan ku jirnaa socdaal aan ku marayno gobollo fara badan si aan u ogaano xaaladda dhabta deegaamadaas waxaan la kulmaynaa waxgaradka odayaasha muwaadiniinta dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu intaasi kadib salaan iyo booqasho ugu tagay boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah ismada Puntland boqorka iyo wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa si wada jir ah ula hadlay saxaafadda runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qorshaha dowladda federaalka iyo kuurgelida xaaladda gobolada kala duwan ee Puntland ama Soomaaliya madaxweynaha gobolka iyo degmada boqorasho iyo khiyaarka gobolka kulliina waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada safar salaam wasiirada qayb badan oo joogay boqor sharafin baan noo tahay oo ku soo salaanay sida uu Abshir sheegay waxaan ku guda jirnaa booqashaan ku mareyno gobollo fara badan oo wadanka waxaanu xusid mudan in wasiirku intii uu ku sugnaa deegaanada Puntland dadka ka wareysanayay baahiyahooda Maxamuud Jamaal Maxamuud oo telefishinka Home Cable magaalada